xaqiiqatanna sheekhaasi waa caalimun muxaqiqun muxarirun mutafanin waa caalim cilmiga ka fedhay sheekh cabdulkariim xasan xoosh abu maxamed waxaan isleeyahay waa min aclami ahli soomaal culimada soomaalida kuwa u cilmiga badan ayuu sheekhaasi ka mid yahay xasan xoosh xafidahu llahu tacaala sheekhu wuxuu ka mid yahay culimada soomaalida kuwooda ugu cilmiga badan ayaa uu ka mid yahay haddaynaan odhaninba dadka hadda nool cid ka aqoon badan ma jirto yani waddankeenna soomaalida xasan xoosh waxa uu la dheeriyey inuu yahay saaxibu sunnatin watibaac saaxibu sunnatin watibaac waa nin sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaala ma aha dadka bidaca lagu yaqaano inta aanu ka naqaano ee aanu ka ognay ee alla la hortegayno يا شيخنا حزت المفاخر والعلا وعثنا وأوصانا بك السادة الأولى وما زلت عن دين النبي مجاهدا تقارع منحلا وتقمع من غلا نذرت لهذا العلم عمرك دائبا تفسر آيات الكتاب لمن تلا وتشرح آثار النبي محمد بشرح كمثل الشهد بل فاقه حلا عنيت بتوحيد الإله فكم لكم عظات بليغات على أعين الملأ xasan xoosh xafidahu llahu tacaala sheekhu wuxuu ka mid yahay culimmada soomaalida kuwooda ugu cilmiga badan ayaa uu ka mid yahay haddaynaan odhaninba dadka hadda nool cid ka aqoon badan ma jirto yani waddankeenna soomaalida afka soomaaliya ku hadasha sheekhu juhdi fara badan buu leeyahy ilahay ha ka abaal mariyo duruus fara badan ayaa laga duubay casharo fara badan ayaa uu aqriyaa oo casharada iyo aqrintooda kama daalo waxaa ka mid a culimada waaweyn ee soomaalida ah oo laga yaabo dad fara badani inaanay aqoon sababtuna ay tahay inaanu aada u adeegsan tifiyada iyo waxa la midka ah waa culimadaasi ka mida sheekh cabdulkariim xasan xoosh abu maxamed waxaan isleeyahay waa min aclami ahli soomaal culimada soomaalida kuwa u cilmiga badan ayuu sheekhaasi ka mid yahay waa tafsiir اlqur'aan xadiid hadday noqoto abwaab اlictiqaad usuul اfiqi iyo fiqi hadday noqoto iyo luqo waa mutafanin sheekhu cumrigiisa ku bixiyey cilmiga xaasilintiisa waktigiisa u badan geliya cilmi inuu dhigo inuu daalacdo cilmi oo cilmigiisa maalin walba wax ku kordhiyo halka in fara badan oo dadkii mar la bilaabay dalab cilmigu waxyaabo kale ku mashquuleen waynu ognahay sheekh cabdulkariim yana duruusta uu dhigay ee maanta duuban ee funuunta kala duwana dalabatu cilmigu meel kastoo ay joogaan ay ka faa'iidaysteen kana faa'iidaysan karaan siday aadka ugu tiro badan tahay ilaa maantana sheekhu jazahu allahu khayran sheekh cabdilkariimna waa rajul runtii waa caalim soomaaliyeed oo qani ka ah in maanta la tacriifiyo oo dad badan yaqaanaan laakiin anigu runtii aqoon badan oo aan u leeyahay sheekha xaqiiqatanna sheekhaasi waa caalimun muxaqiqun muxarirun mutafanin waa caalim cilmiga ka fedha buuxsaday weliba cilmiga uu sheegayaa cilmi muxaqaq ah oo uu iska hubiyey oo uu mid walba meel u sal saarayo uu yahay cilmigaasi waa caalim muxarir oo masaa-isha cilmiga ee culimmadu isku khilaafaan ku taxriirinaya qawaaciddii ahlulcilmiga iyo waxa weeyaan usuulka iyo luuqada ku taxriirinaya iyo qawaaciddii xadiiska oo cilmiga uu sheegayaa cilmi uu runtii wakhti badan ku bixiyey oo uu xariray uu yahay waa caalim mutafanina runtii oo marka aad duruustiisa eegto ama aad dhegaysato waxaad ka faa'iidaysaa fan kasta tafsiirkiisa haddaad xaadirto waxaad arkaysaa masaa'il luqa ah qaar tafsiira qaar fiqiya kuwa xadiis ah waxa weeyaan oo si waxa weeyaan qiimo leh oo uu cid kasta oo darsiga fadhiisata oo aqoon wuxuun ka hayaa uu fahmi karo uu taxriirinayo xaqiiqatan duruustiisu waa cadiimat alfawaa'id kathiirat addurari waalfaraa'id
waana sida aan sheegay duruus kutubta u dhigayo walow haba ahaado qaar aad marka aad eegto aad soo dhigatay laakiin marka aad dersiga fadhiisato waxaad arkaysaa in cilmi badani runtii oo aanad haynin aad ka faa'iidayso waxaa intaa uu la dheeriyey sheekh cabdikariim xasan xoosh waxa uu la dheeriyey inuu yahay saaxibu sunnatin watibaac saaxibu sunnatin watibaac waa nin sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaala ma aha dadka bidaca lagu yaqaano inta aanu ka naqaano ee aanu ka ognay ee alla la hortegayno waxa weeyaan cilmi naafica oo thamaraadiisii iyo midhihiisii la arkay oo ardaydiisii maanta meel walba adduunka ka joogta ciddii wax ka dhigatay waxa weeyaan ama cilmi ka qaadatay oo aad arkayso inay ku intifaaceen cilmigii ay ka qaateen waxa weeyaan iyaduna waa shay anigoo og xaqiiqatan inaanu sheekhayga sheekh cabdikariim aanu ogolayn hadallada qaarkoodna aanu u dhibsan doono haddana waxa weeyaan alxaqu yuqaal subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk